شيخ حارونت وين علاج كشفاء العسيس مقالة مقدسة شيخ محمد رشية وسر رسمي مانت وربعين كورده الله حارونت وين شفاء العسيس مقالة مقدسة وكل هاي شيخ محمد رشية وهو شيء كور بحي شغله مالها وكقبته حارونت وين علاج كشفاء العسيس حارونت يا وحا سحوليا كاغا سوقتا شغله مالها يسيدو كلا شغله قران ساركا وولكا si toos ah kaga wado sheekh maxamed rusheeye xarunta ayaa waxaad ka helaysaa qaybaha kala duwan sida qaybta bukaan jiifka ee xaruntu ay leedahay iyo sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn qaybta dhaqaaqaynta oo ay leedahay xarunta weyn ee Shifaa Casiis ee ilaajka daweynta lagu talagalay dadka qaba xanuunada ruuxiga sida isha jinka iyo sixirka xaruntu waxay kugu taalaa degmada Dharkeley gaar ahaan xaafadda Hoosha cid kastoo danaysa inay gaadho xarunta weyn ee Shifaa Casiis ee kugu taala magaalada Muqdisho isla markaana maamulka sare ee xarunta Sheekh Maxamed Rusheeye ayaa bulshada Soomaaliyeed ee la ildaray xanuunada ruuxiga u diray fariin ku aadan in qof kasta oo qaba xanuunada ruuxiga ay soo booqan karaan xarunta weyn ee Shifaa Casiis ee kugu taala degmada Dharkeley gaar ahaan xaafadda Hoosha meesha waxaa geesta kale aan ka maqnayn isla markaana aad ka helaysaa qaybta internetka oo qofka dalka dibadiisa ku sugan si rasmi ah oo Maxamed Rusheeye uu qadka ugu quraan saarayo sheekha ayaa si rasmi ah maanta warbaahinta qaybaha kala duwan ula hadlay waxaana uu ka warbixiyay isla markaana uu ka hadlay fariin dheerna u diray dhammaan dadka qaba xanuunada ruuxiga in Allah iyo wax shaafiye uu tirtiisa Allah ku shaafinayo boqolaal qof oo maalinkii soo gaaray xarunta weyn ee ilaajka Shifaa Casiis ee magaalada Muqdisho ayaa Allah ku shaafiyay tufta Sheekh Maxamed Rusheeye oo ah maamulka guud ee xarunta ilaajka Shifaa Casiis ee magaalada Muqdisho waa sheekha ka warbixinaya shaqadiisa maalinlaha oo ku guda jira maanta aan ku booqnay xarunta ku taala degmada Dharkeley gaar ahaan xaafadda Hoosh ka warbixinaya shaqada uu ka qabto xarunta weyn ee ilaajka Shifaa Casiis ee magaalada الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولا لها مسلمين لا حنوصنا يحنونا الشياطين sida isha iyo jinka iyo sixirka insha Allah waxaan xarunta Shifaa Casiis hadda aan ku hol bilaabnay ay shaqadeeda si fiican ay u socoto insha Allah 24 saac ay shaqayn doonto xarunteena Shifaa Casiis xarunteena kala ay ku taala magaalada Burco xaruntaasna insha Allah sheekhi igu weynaa wax ay soo baray Sheekh Nuurayn Barre Maxamuud ajo xaga sabraa alxamdulillah waan u mahad celinaya sheekhi oo waxaan soo baray sidii dadka loo ilaajiyo loo quraan saaro hadii igaga tagay magaalada Muqdisho dadka reer Muqdisho waxaan u sheegi doonaa in ay xarunta Shifaa Casiis ay shaqaynayso 24 saac xarunta waxay leedahay qayb bukaan jiif ah iyo qayb dhaqan celin ah ay leedahay xarunta Shifaa Casiis marka daawooyinka u sheegaya dadka oo jooga dibadaha waxaan u haynaa qayb oo online ah qaybtaas online ka ah ayadana waxay shaqayn doontaa sida galbihii oo kale bay bilaabo doontaa dadka jiraan Ingiriiska iyo meelahaas waxay u bilaaban doonaan baadul maqrab marka laga baxo aan u shaqayn doonaa xarunta waxay leedahay qaybta bukaan jiifka oo 24 saac oo lagu adeegayo xarunta Shifaa Casiis sheekhi Sheekh Nuurayn asagana hadda joogo Burco oo shaqeynaya xarunta qofkii oo magaalada Burco iyo meelahaas rabo qaybtaas xaga ka wargelinay tan magaalada Muqdisho ana jooga insha Allah dadka quraan saarka rabo way imaan karaan xarunta waxaan u adeegi doonaa si free ah xarunta waxay ku taalaa degmada Dharkeley gaar ahaan xaafadda Hoosh insha Allah waxay faahfaahinaha waxaad kala soo xiriiri kartaan telefoon lambarada